magaalada Montreal anagoo joogna ayaa gabar Soomaaliyeed waxay soo gashay xero ayay soo gashay oo ka timid qaxoonti ah haween baa ka shaqeeya kaniisadda ka tirsan oo Kaatooliga ah ka shaqeeya meesha Blackpool baa la yiraahdaa haweenkii meesha ka shaqeynay mid kamid wiil ay dhashay yaa gabadhii arkay gabadhuna xijaaban tahay Faransiiskii iyo wixii buu kula hadlay way arkay inay taqaanaan Faransiis wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan ku guursado waxay tiri may anagu ma sameeyno waxaan doonaysid laakiin haddii aragto inaad guursato waa inaad muslim noqotaa maxaan oranayaa buu yiri oo sidaa dhaabay tiri waa sahal buu very simple buu yiri sidii buu yiri waa soo kaxay waa la ii keenay waxa la isku keenay mehri intaan baan ku dhaqaaqay ninkii waxay tiri ninkan su'aalahan badan oo weydiinaysa mar hadduu muslim yahay kaliya ugu mehri ilaa wax la soo dhoobay weey taasi ma soconaysa hadda war islaamka ma qaa maxaad ka taqaanaa wax badan kama aqaan laakiin waa jeclahay islaamka aniga muslim waa noqdo laa ilaaha illa muhammad rasuulullaahi aan ku noqday ilaa waxay 10 maalmood soo aqrinaysa weey ma tukataa salaada maya inta salaadada qofka muslimka ku waajib ku ama taqaana maya maxaa qofka laga rabo diinta soo galo ma garanayo ninkaani gabadhaanu rabaa bas wax kala ma rabo waxaan ku yiri saas diin ma he na gabar yahay naftaadana been ha u sheegin dad kale been ha u sheegin meel joog may bay tiri nin bay u tagtay Suudaani iyo ninkii waxay tiri ninkaas aan u tagnay sheekha Soomaaliga waa naga diiday isku keenay meer hadii kale ninkan adeeran raacaya waa Sheekh Cabdiraxmaan yiraahdo waa isku meeriyay waxa ka dhiman bishii Ramadaan markaas taqriiban bil iyo bar yaa ka dhiman bil iyo barkii markii la gaaro Ramadaanka yimid tiri soon waaye hel buu yiri diintaada ma diintayda aniga ka fiican markaan diintaada galay baahi isu dilay maana wala oo maxaa dhaasoo taa tirwaan islaamaya ee waxaan doonay waxaan maryahan ku qarinayso hoostooda inaan ogaado yiri waan ogaado kuwa naga kama fiicna buu yiri kuwa naga kama fiicna buu yiri kiinaaba dhib badan uu yiri yani kiina dhib badan ta macnaha oo la soo guday oo la soo hawshaas ka wada kiinaaba dhib badan uu yiri marka keenna ka fiican uu yiri halkaas iyadu oo inay sameeyay daba soo waaday Sheekh Maxamed oo arintiisaas ay ku dhacday amsaasa ku dhacday waliba ugu darad u istaashaan ku eri ma dhacay saas leeyahay waxaan qooqi waa ku daayay hadda marka ka gurbaan adigu waaye qooqi waa ku daayay markan kula hadlay aqligu miskaw kaaga jiray hadda maskaxda kaaga soo noqday hadda wax iska qaba baan ku eri adigu aqligu miskaw marna kaaga jiray marna madaxu kaaga jiray hadda marka hor miskaw kaaga jiray waxba igama maqlaynin laakiin markuu miskiin aqliga ka soo baxo madaxa ku soo noqday hadda meel wax ka qabata adigu hal waxaan leeyahay marka arinta ayada ah waa in laga fiirsado waa soo islaama ninku waa soo islaama iyo waa gacalow iyo waxa soo dhan kalam faadi weey gabadha waa soo islaamina iyo waa gacalay iyo waxa soo dhan waa kalam faadi weey quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay wala tankihu al-mushrikaati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إلهي سبحانه وتعالى أيضا وحكوا عدين سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات هقول سنين هوينك مشركاتك حتى يؤمنن إلى أي كرميان ولا أمة مؤمنة أدون مؤمنة خير من مشركة أيضا كخير بدن مد مشركته ولو أعجبتكم مشركته أنت دون تقروح بدناته قبل مؤمنة داها كخير بدن بيقول الله سبحانه وتعالى إلهي خلقيا سيدا نوكل شيء عدينيه مركا أدوكو هذا لا تصوغ روح ستي وحبكم بدلي كرتيده وقو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ورمنك مشركين تانا هو قورننا إلهي كرميان ولا عبد مؤمن خير من مشرك أدون كمؤمن كخير بدن متك مشرك كخير بدن ولو أعجبكم هبا إذن عجب قليو هيدن لا قرحونا هيدن لا وناك سنادو ننك قال كاي أدون كمؤمن كخير بدن ليه أولئك يدعون إلى النار بقول الله سبحانه وتعالى انت سوحيو يريان نار تيدن كوكو يريان والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ilaahayna jannadii iyo dembi dhaaf idinkugu yeeraya